بسم الله الرحمن الرحيم waxaa lagu soo waramayaa in duqeymo culus ay socdaan dagaalana ay socdaan ilaa iyo tan iyo saakay waa berigii dad ka badan 60 qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duqeynta iyo weerarada Israa'iil guutooyinka al-Qassam ee garabka hubeysan ee ururka Hamas ayaa soo bandhigay sawir ay ka buuxaan 48ka maxaabiista lagu haysto marayka Gaza oo ay sheegeen in la macsalaameeyo iyagoo taana ula jeeda inay qatar ugu jiraan inay ku dhintaan dagaalka Israa'iil ee ka wada marayka Gaza aan kala eegaynaa Hamas si adag ayay waxay u cambaaraysay talaabooyinka Israa'iil ay ku adeegsanayso baabuurta laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa oo ay ku burburinayso dhismayaasha iyo guryaha ku yaal marayka Gaza iyadoo xaaladuna ay ka sii darayso ruushka ayaa duqeymo dhimasho dhaawac iyo burbur sababay waxa uu ku qaaday dhowr gobol oo ku yaala wadanka Ukraine Pakistan waxaa lagu soo waramayaa in ay kordhisay muddada diyaaradaha Hindiya ay ka mamnuucday inay soo maraan hawadeeda Maxamed Cabdi oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira Maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn Israa'iil ayaa duqeyn waalan ku wada meelo kala duwan oo kamid ah marinka Gaza iyadoo warbaahinta maxalliga ee Falastiiniintu ay sheegayso in magaalada Gaza ay duqeyn aad u xoog badan oo aan hore loo arag oo xagga cirka ay Israa'iil ku duqeynayso xaafado badan waxaa sidoo kale duqeynta wada taangiyada Israa'iil iyo hubka la yiraahdo madaafiicda goobta meelaha la duqeynay waxaa kamid ah wadada la yiraahdo Al-Jalaa iyo Sheikh Ridwan waxaana socota in ay Israa'iil ka geysanayso wadooyinkaasi duqeyntii ugu baahnayd ebed ee magaalada Gaza arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ilaha caafimaadka ee Gaza ay sheegayaan in 61 Falastiiniyiin lagu dilay duqeyntaasi waalan 49 kalena lagu dilay magaalada Gaza gudaheeda Kataib al-Qassam ayaa soo saaray sawir muujinaya 48 maxaabiista Israa'iil ka tirsan ee weli marinka Gaza lagu hayo oo ay ku qoran tahay hal macsalaameeyo sababtoo ah qatarta duqeynta waalan ee Israa'iil iyo howlgallada marinka Gaza ee Israa'iil ka wado magaalada Gaza sawirkan ayaa muuqda inuu yahay sawirro la isu keenay waxaana la xusay kabtankii ciidanka cirka ee ka tirsanaan jiray Israa'iil oo hadda ka hor lagu waayay wadanka Lebanon 1986 oo la aaminsan yahay in la qabsaday macluumaadkan ay soo saareen ururka Hamas ee sawirka ah ayaa farta ku qoran waxa ay tilmaamaysaa in Netanyahu uu diidan yahay iyo taliyaha ciidamada qalabka sida oo la socda Netanyahu awaamirtiisa in ay macsalaameeyaan howlgallada ay ku qaadayaan magaalada Gaza maxaabiistooda fariintan ayaa waxa ay muujinaysaa bayaanada ururka Hamas ay hore uga digayeen in Israa'iil duqeyn ba'an ku hayso magaalada Gaza oo ay khatar gelinayso nolosha dadka maxaabiista ah oo ururka Hamas ay ku sheegayaan inay ku kala xiran yihiin ama lagu hayo meelo kala duwan oo kamid ah marinka Gaza dhanka kale ururka Hamas ayaa cambaariyay waxa ay ku tilmaameen in Israa'iil ay isticmaalayso baabuur gaashaman oo iyo baabuur waaweyn oo ay qaraxyo ka soo buuxisay oo la eeganayso magaalada Gaza waxaana ku sheegtay in dhaqankaasi uu yahay dambiyo dagaal bayaankan la soo saaray ayaa ururka Hamas waxay ku sheegayaan in Israa'iil ay ku qarxisay ilaa 120 baabuur bambooyin laga soo buuxiyay deegaanada dadku degan yihiin ee magaalada Gaza ilaa iyo muddo 7 gudihiis arrintaana waxay cadeynaysaa xadgudub in lagu sameynayo qawaaniinta caalamiga iyo dambiyada dagaalka oo hore loo xusay ururka Hamas ayaa ka dalbanaya beesha caalamka gaar ahaan wadamada Carabta iyo kuwa muslimiinta inay tillaabooyin degdeg ah qaadaan sidii lagu joojin lahaa waxa ay ku sheegeen dambiyada socda ee Gaza ee ka dhanka ah shacabka Falastiiniyiinta iyadoo wararey xuquuqda aadanaha ayaa diiwaan geliyay xaalado iyo qaabab lagu xaqiijin karo in dambiyadaasi ay dhacayaan aan weli la soo saarin weerarada Israa'iil ay ku qaaday laba kamid ah xafiisyadii ay wargeysyada wadanka Yemen ku lahaayeen magaalada Cadan
bishan gudaheedii ayaa waxaa ku dhintay 31 suxufi hase ahaatee waxaa muuqata weerarka ugu dhimashada badan in uu ahaa ee labaad ee ka dhaca meel ka mid a caalamka sida ay sheegayso hay-adda u waloolaysa difaacidda suxufiyiinta. hay-addan ayaa ku waramaysa annaasir al khadri oo ah tafatiraha guud ee wargeyska September 26 la yiraahdo in mid ka mid a goobahaasi la tilmaamay dadka lagu dilay ay tahay xasuuq aanan weligiis la arag oo suxufiyiin loo geysto. ilaa ay hadda dhinaca xuutiyiinta ayaan tirada rasmiga ah ee ku dhimatay weerarkaasi sheegin. hadda ahaatee Israa'iil ayaa tilmaamaysa in duqeynta lagu bartilmaameedsanayo warbixinada iyo goobaha wararka oo loogu marmarsiyoonaya inay fidinayaan propaganda la xiriirta argagixisada ay tahay arrin aan loo meeldeyi karin sida hay-adda u waloolaysa difaacidda dadka suxufiyiinta ay sheegayaan. nin hore uga tirsanaan jiray ciyaaraha Faransiiska iyo xulka qaranka ee Faransiiska iyo tiimka ka ciyaara Britain ee la yiraahdo Manchester United, Eric Cantona ayaa ugu baaqay hay-adda kubadda cagta caalamiga ah ama xiriirka kubadda cagta caalamiga ee FIFA iyo hay-adda kale UEFA la yiraahdo inay mamnuucaan Israa'iil kana mamnuucaan ciyaaraha, asagoo barbar dhigay in Ruushka markii uu weerarka ku qaaday Ukraine si degdeg ah ciyaartoydiisa looga mamnuucay ciyaaraha caalamiga ah. tiimamkan la baxay ama kooxdan la baxday Falastiin ayaan garab taaganahay ayaa munaasabad ay ku qabteen London ayaa Cantona oo ah nin caan ku ah inuu aragtidiisa siyaasadeed dhiibto ayaa sheegay 4 maalmood kadib markii uu bilowday dagaalkii Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeyay ayaa FIFA iyo UEFA waxa ay mamnuuceen ciyaartoydii Ruushka. hadda waxaan joognaa 716 maalmood sida ay hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadanaha Amnesty International ay ku sheegayso waxa goobtaas ka socda inuu xasuuq yahay. ilaa hadda ma hayno cid Israa'iil ka hor istaagaysa in ciyaaraha laga joojiyo. Israa'iilna waxay wadaa inay ka qayb qaadato ciyaaraha caalamka. wararka caalamkana waxaa ka mid ah Ukraine ayaa duqeyntii ugu bacneed ee xagga cirka muddo bil ah la kulantay iyadoo madaxweynaha wadanka Ukraine Zelensky uu ku dhawaaqay in dowladda Ruushka ay 40 gantaal iyo 580 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inay la beegsatay gobollo kala duwan oo Ukraine ka mid ah. halkaas waxaa ku dhintay wiilal dad qaarna way ku dhaawacmeen. Zelensky ayaa sheegay in duqeyntaasi bartilmaameedkeedu ahaa 9 gobol oo ay ku jirta caasimadda, waxaana ku nuuxnuuxsaday in weerarkaasi lagu duqeynayay kaabayaasha dadka rayidka ah iyo meelaha dadku ay degan yihiin. Ruushka ayaa beenaynaya inay bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah, waxayna ku nuuxnuuxsanayaan in howlgalladooda uu bartilmaameedkiisa keliya yahay kaabayaasha militariga iyo warshadaha militariga Ukraine. hase ahaatee madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay duqeynta Ruushka in looga gol leeyahay in lagu cabsi geliyo dadka rayidka ah lana burburiyo kaabayaashooda. wuxuuna ugu baaqay wadamada reer galbeedka oo madaxweynaha Ukraine in laga kaalmeeyo nidaamka difaaca cirka laguna soo rogo wadanka Ruushka oo qabatayno dheeraad ah. wadanka Pakistan ayaa kordhiyay mamnuucidii uu ku soo rogay diyaaradaha laga leeyahay wadanka Hindiya inay hawadiisa soo galaan ilaa iyo inta laga gaarayo October 24-keeda. hay-adda maamusha hawada wadanka Pakistan ee PAA la yiraahdo afhayeen u hadlay oo la yiraahdo Safiullah Khan ayaa sheegay in bayaan uu siiyey warbaahinta in Pakistan hawadeeda ay noqon doonto mid ka xiran dhammaan diyaaradaha u diiwaan gashan wadanka Hindiya. mamnuucidaasna waxa ay khuseynaysaa dhammaan diyaaradaha oo dhan, diyaaradaha ay leedahay Hindiya, kuwa Hindiya ay adeegsanayso iyo kuwa ay soo koreysatay. xataa waxaa ku jira baa leeyahay diyaaradaha ay militariga Hindiya leeyihiin. hogaamiyaasha Pakistan ayaa ku dhawaaqay bishii Abriil 24-keeda tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin tallaabooyin lagu xireeyo hawada Pakistan loona diiday dhammaan diyaaradaha Hindiya laga leeyahay
ay tahay mid looga jawaabayo xadgudubyada joogtada ah ay Hindiya ka qaaday waddanka Bakistan sida lagu qoray mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee Hindiya kasoo baxay The Nation la yiraahdo. waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin mar kale ayaan soo dhaweynaynaa daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah ee degdeg ah ee soo kordha ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa maxamed aan ku bilowna arrimaha falastiiniyiinta ee Gaza maalinta isniinta Faransiisku waxay xaqiijiyeen 10 wadan oo Faransiisku uu ka mid yahay oo Britain iyo Canada ay ka mid yihiin inay aqoonsan doonaan dawlad Falastiiniinta ay yeeshaan laakiin culayskan iyo cadaadis sidan la saarayo Israa'iil gudaha marka la eego tilaawo u baahan tahay weerarey arrinta laakiin oo baahna hadal iyo aqoonsi khubarada maxay ka leedahay in loo baahan yahay ficil in la sameeyo Professor Tamer Kharmoud ayaa waxa uu sheegayaa oo dhiga cilmiga daraasaadka siyaasadda ayaa waxa uu sheegayaa Israa'iil ayaa waxay caadi ka dhigatay inay xadgudubyo iyo dagaal joogto ku hayso Mareykanka Gaza. Dhibaatada waxay tahay oo leeyahay waxa loo arkaa inay arintani dhiiri gelinayso Israa'iil inay sii geysato xadgudubyo joogto iyo xasuuqan oo caadi noqdo caalamka oo dhanna uu dareen la'aan isha ka fiirsado waxaasna ay noqdaan wax joogto ah. waxaana uu leeyahay waxaanan muuqanin in la joojinayo tirada wadamada ay laga filayo inay aqoonsadaan xukuumad Falastiiniyiin ah. kulanka guud ee qaramada midoobay ee toddobaadka soo socda la qaban doono ayaa rajo weyn laga filayaa saacadee Falastiiniyiinta ayaa waxay rabaan tillaabooyin wax ku ool ah in laga qaado Israa'iil waa sidoo hadalku u dhigayo Professor Kharmoud. waxa ay Falastiiniyiintu sheegayaan in rabitaan siyaasadeed loo baahan yahay oo dhulka ka meel mara taasoo tillaabooyin wax ku ool la qaadayo oo waxyeello u geysan kara Israa'iil maadaama ay ku dhaqmayso siyaasad ay ku qarameynayso daanta galbeed isla markaana laga joojiyo dambiyada ay maalin walba ka geysato Mareykanka Gaza iyo daanta galbeed. waxaan u baahannahay bay leeyihiin Falastiiniyiin inaan aragno beesha caalamka oo waxyaabaha ay sheegayaan xaqiiqadii tallaabooyin la qaado lagu ciqaabayo Israa'iil oo xanuunka ay dadka Falastiiniyiinta ku haysa ay ayada lafirkeeda ay mirihiisa gurato ay xanuunka dareento xasuuqa ay geysanayso iyo waxa kale ee dhibaatada ah haddii kale uu leeyahay hadal looma baahna fal ayaa loo baahan yahay. waa gartay waa yahay intayna ka bixin isla arrimahani sawirkan ay soo bandhigeen guutooyinka Al-Qassam oo ay leeyihiin mac salaama maxaabiista arrintan ilaa culays intee ku kordhin kartaa Netanyahu waxaan ognahay maanta in la diyaarinayo banaanbax aad u ballaaran waxaana la yiri banaanbaxyada waxa ay ka dhigan doonaan meel ay fariistaan oo aysan ka kicin kadinka hore ee guriga Netanyahu arrinta marka culayska ay ku yeelan karto dagaalkan muxuu noqon karaa macluumaadka soo baxay oo dhan ayaa waxay tilmaamayaan dadka ay ka xiran yihiin maxaabiista la haysto in ay aaminayaan wararka ururka Xamaas ka soo baxayo Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraheeda in aynan aaminsanayn inuu adeegayo soo deynta maxaabiista. waxa uu ka shaqeynayaa bay leeyihiin oo keliya sidii uu mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo kursigiisa ku haysan lahaa. wasiirada xaq jirka ana kulligood waxa lagu eedeynayaa inaynan dan ka lahayn dadka maxaabiista. inta marka la yiraahdo Xamaas wararkan ay soo gudbinaysaa maxaabiista ay la xiriira waxa ay ka mid tahay inay soo gudbiso xaqiiqada dhabta ah ee maxaabiista ay ku sugan yihiin. macluusha dadka Falastiiniyiinta haysata iyo godoominta iyo cunnada loo diiday inay gaarto dadka masaakiinta ah iyo dadka daciifka ah sida dumarka, caruurta iyo dadka jiran ayay sidoo kale waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dadka maxaabiista. hore ayaa loogu sheegay Israa'iil waxaasi ma kala jecla. hadda Israa'iil waxa ay bilowday cabsi laga qabo in howlgal military la qaado. abaanduulihiina dhowr goor u sheegay ayay waxay wadaa burburin aan naxariis lahayn oo xagga cirka ah oo magaaladii qadiimka ahayd iyo daarihii dhaadheera dhulka lala sameeyo duqeyn aan kala joogsi lahayn oo arxan lahayn oo ujeedada ka dambaysa aan la aqoon. toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya
120 baabuur oo fogaanta laga wado oo qaraxyo laga soo buuxiyey ayay Israa'iil kaashanaysaa. tanna waxa ay muujinaysaa Israa'iil weli ciidankeeda inay niyad u hayn dagaalka loo dirayo oo mas'uuliyiintooda ay ku qasbayaan inayna tabarna u haynin taagna u haynin, laakiin ay oga soo hartay oo keliya duqeyn xagga cirka ah. dhinaca kale marka la fiiriyo caalamka, wadamada reer galbeedka qaar ka mid ah ayaa tillaabooyin wax ku oola qaadaya oo uu ka mid yahay waddanka Spain oo qaaday tillaabo uu ku mamnuucayo in wax la xiriira Israa'iil oo siyaasiyiin aynan waddankiisa imaan karaynin, iyo tillaabooyin kale wax ku oola oo ku joojinaya dhammaan xiriirkii ay la lahaayeen Israa'iil. waayo markan aynu eegno xagga xuutiga, wararka iyagii shalay waxaa ku jirtay wasiir gaashaandhigga Israa'iil oo leh waxaan ka taageernaa magaalada Sanaa calanka Israa'iil, laakiin xuutiga maanta way ka jawaabeen. waxay yiraahdeen maraakiibtiinii baa calamo kale ku dhuumanaysa oo isticmaalaysa dekada ilaatna ama umara sharashna waa inay ka xiranta dad furi kartaan bartaa isku daya. arrintan maxay u muuqataa hanjabaadaha hawada la isku marinayo? wasiirka gaashaandhigga Israa'iil hadallada uu sheegay ma aha hadallo uu ka fiirsanayo. Gaza ayuu 2 sano ku dhawaada ciidankiisa ka dagaalamayaan, tabar iyo taag uma hayaan, iyadoo oo diblomaasi ahaan iyo military ahaan uu Mareykanka taageerayo ayaa waxaa fashilmay awoodda Israa'iil sheegi jirtay markay ay timaado ururka Xamaas. intaa marka la yiraahdo xoutiyiinta waa la yaqaanaa, dad gabanaya maaha. Mareykanka meel uu wax ka tari waayey uma muuqato inay Israa'iil wax ka tari karto. tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye Israa'iil gudaheeda ayaa walaahow badan ka jira. waxaa la qarinayaa gantaalada iyo diyaaradaha droniska ay xoutiyiinta soo dirayaan, waxyeelada ay geysanayaan iyo sida ay saameyn u leeyihiin, iyo in ay Israa'iiliyiinta ku qasbayaan dhulka hoostiisa inay galaan. hase ahaatee Israa'iil way qarinaysaa, wayna ismaagsiinaysaa. diblomaasiyadna arrintan laguma soo afjari karo. xoutiyiinta lamana laaluushi karo, lamana handadi karo. duqeymihii ay geysanaysay iyo wixii ay geysanaysana hadda waxaad moodaa inay hoos u dhaceen kadib markii ay xoutiyiintu sheegeen inay howlgeliyeen nidaamkooda difaaca cirka. Israa'iil wax walba oo ay xoutiyiinta ka sheegto waxa weeye intay meel maraan ayaa la sugaya. hadday calan ka taagi karto ha ka taagto, laakiin dhowr goor oo hore ayaa Mareykanka dadkiisa isku dayay in dowladda caalamku aqoonsan yahay iyo xoutiyiintu isku horkeeno, kadibna waxaa la arkay oo la garwaaqsaday inay arrintaas socon kareen. dagaal lugta loogu tago xoutiyiintana inay tahay mid ayaga dhinacooda ay ku adkaan doonaan. waxaana muuqata Israa'iil wax walba ay samayso in arrinta hadda haysata ay go'doomin caalamiina haysato, tabarteeda iyo taagteedina in ay duqayso oo duqayn waalan oo xagga cirka geysata maane militarigeeda inuu ka caagay in weerar abaabulan ay qaadaan. weerarada ay qaadaanna kulli waa ku jabaan. haddana waxay naf moodaan baabuurtii qadiimka ahayd oo dhan ayay bambooyin ku xiraan oo ay ku wadaan fogaan, kadibna daaraha waaweyn iyo wadooyinka ciriiriga ay ku galaan. waay xagga Yurub aynu eegno, ruushka waxaa lagu eedeynayaa mar kale inuu galay hawada Estonia ilaa 9 kilomitir, 3 diyuuradood halkaas ku galay. NATO waxay ku andacoonaysaa inay ka hortagaan diyaaradaha F-35 Talyaaniga uu leeyahay, laakiin Moscow arrintaas way beeninaysaa. duqeyntiina hadda way ka soo dartay dhanka ruushka iyo Ukraine oo hadda waa warka ku sheegaynay. wararka kale iminka soo baxay waxaa ka mid ah intaynu barnaamijka ku jirnay Trump uu ku wargeliyey NATO in uu dhimi doono dhaqaalaha uu ku bixiyo wadamada Baltiga dhaca. xiisadan hadda aad moodo inay soo xoogeysanayso maalinta ka dambaysa oo NATO iyo ruushka ah, bal war naga sii Maxamed. NATO waxaa muuqata inay baqdin xoog leh ku jiraan, sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan. tabar iyo taag ay isaga celiyaan ruushka ma laha. hadallo badanna waa ka tageen oo dilqaafa. duqeynta dardar gashay ee ka dhanka ah magaalooyinka muhiimka ah ee waddanka Ukraine waxay marqaati cad u tahay in taageeradii ay siin jireen Ukraine ee waxtarkeedii eber noqday. hadda xadgudubyadan ay sheegayaanna ay rabaan marmarsiyo ay ku sheegtaan in ay la socdaan waxa dhaqdhaqaaqa ay socda. awee diyaarado ay NATO leeyihiin xuduudyada
ruushku leeyahay agtiisa ma tegi karaan iyo wadamada ku dhow intaba waxa weeye raadarada iyo la socoshada hawada ruushka iyo agaarkiisa aad ayay u weyn tahay waxaana darsi cad lagu qaatay diyaaradii droniska ahayd aad u shaacday oo caalamka u shaaciyey oo Mareykanku ku doodayay inay maraysa badaha caalamiga ah ruushka ku soo hordeen meel u dhow xuduudka dhulka uu qarameeyay ayaa darsi lagu qaatay tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye badda madow wadamada Balkanka lagu sheegay waa kuwa badda madow kulaala iyo dhowr goor ayaa hanjabaad loo jeediyey magaalada ruushku leeyihiin Kaliningrad la yiraahdo hadda waxa moodaa ruushka sidii uu Dorotuskii uu Belarus ula sameeyay oo uu tijaabiyay kantaalo guuxooda ka dheereeya oo khatar ah waxaad moodaa in wada tashiga iyo shirshirka wadamada NATO uu badan yahay laakiin ruushku waxaasi ka gaban maayo sida khabiirada reer galbeedka ay hadal ku dhigayaan waxaana muuqata baryahan dambe inay ayaga lafkooda bilaabaan kormeer inay ku sameeyaan xuduudadii hore itixaadka Sovietiga iyo u dhaxayn jiray ruushka haddii ay ka gudbaan deegaanadaasi waxay u badan tahay in uu yimaado isku dhac xagga militariga ah وقتها محمد آد بعضو محسن تاي داود ياشوني محسن يهينيتا أيام كسو قبقبيننا عاوة برنامجك داود سي آد ولا ساعته وركانيو برنامج جدا يمعلوماتك أينو هلكن كسو قدبينو هدي آدكم عصب تاي بريهنا برشدا أما هوري آدانا وحرنين هدا كسو بير أينو برنامج كحيقة إن شاء الله إنت كوه الرئيسة نباد قليو كسو دوو غاري أونلاين qurba joogta dadkaygu barashadii quraanka iyo qalinkii aqoonto online lagu qorsheeyo qadka haatan laga helo waa qaari online qabso oo hadalkaygu waa qaari noqo oo quraanka ku baro online waa ubadko qurba jooga qadka iyo internetka casharada ka qaateen u kaalaya qaari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qaari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qaari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda